U soo dhawaada webinarkan. Maanta waxaan ka hadlaynaa AI waxa ay tahay, sababta ay muhiim u tahay, iyo waxaad u qaban karto ama aad ku qabsan karto. Aan ka bilaabno taariikhda AI. 1950kii, 70 sano ka hor, saynisyahanada iyo researcherska waxay isweydiinayeen, can machines think? Computerka ama mashiinka ma fikiri karaa? Jawaabtu waxay noqotay ha, laakiin in loo baahan yahay compute oo ah GPUs fara badan oo lagu rangareeyo fikirkaas uu ku sameynayo computerka, taasoo qaadanayso koronto ama electricity iyo energy fara badan. In loo baahan yahay sidoo kale xog, iyo in loo baahan yahay algorithm hawshaan oo dhan rangareysa oo maskax ah. Caqabadaas lama xalinin. Haddaba 7 sano kadib, sababta keentay inay hadda AI soo baxdo waxay tahay markii saddexdii xal loo helay. Kan koowaad oo ah compute, waxaa xalisay Nvidia oo samaysay GPUs AI-ska gaar u ah oo machiniska lagu rangaray karo. Talabaad oo ah xogta, waxaa xaliyey internetka, oo internetka aad ka helayso Wikipedia, buugaag iyo xog walbo aad u baahan tahay. Caqabadda saddexaad oo algorithm breakthrough ah, 2017 researchers Google ka socda yaa waxay soo saareen warqad title ay u tahay Attention is all you need. Warqadaas waxaa ka dhashay waxa loo yaqaano transformer architecture. Waxaa ka dhashay transformer architecture. Transformerka processka uu marayo halkii, yani markii input qofka uu soo geliyo qoraalkii uu mid walba raaci lahaa, transformerka wuxuu u rangareynayaa markaasi qaab parallel ah oo taas speedkiisana u qaadaysa. Wuxuuna sidoo kale fahmayaa qaybta ay tahay attention inuu ku bixiyo qoraalka muhiimka ka ah. Haddaba saddexdii caqabad waa la xaliyey. AI baa timid. Waxaa isweydiinaynaa marka, maxay AI anaga bini aadan ahaan inoo xalinaysaa? Marka koowaad, AI problemka ugu weyn ee xalinayso waa cost of cognition. waa qarashka, yani cognitionka iyo fikirka iyo energyga maskaxeed ee wax aan ku bixinayno. Haddii taariikhda eegno, howlooyinka u baahan cognitiveka sida wax akhrinta, qoraalka, wax analyze garaynka, go'aan gaaridda, waxay u baahnayeen dhammaantood bini aadan inuu howlgaro. Bini aadanka waa qaali, waxay u baahnayaan hurdo, way daalayaan, waana slow. Tusaale ahaan, bini aadanka ma heli kartid saddexdii habeenimo, xilligaas way hurdaan. Bini aadanka waa emotional iyo waxyaalahaas oo dhan. Haddaba AI cognitionkaas waxay ka dhigaysaa raqiis, waxay ka dhigaysaa degdeg, waxay ka dhigaysaa scalable ama mid la ballaarin karo. Mar walbana waa available oo waa heli kartaa saddexdii habeenimo markay rabto ma seexanayso. Kaliya waxay u baahan tahay electricity oo computekaas ku rangareysmaan. Haddii taariikhda aan eegno, markii industrial revolution oo imaanayay oo dadka beeraha intay kasoo baxaan ay galayeen industry, oo ay soo saarayeen, markii la soo saarayay warshadaha iyo waxyaalahaas weeyaan casrigaas, waxaa soo baxay machines oo ay ka mid tahay mashiinta cagafta, mashiinta gawaarida ku shaqeeya. Waxyaalahaas ma bedelin bini aadankii shaqayn jiray. Mashiintaas oo cagaftii oo lagu fali jiray tusaale ahaan beeraha ma bedelin bini aadankii, laakiin hawshii badneed iyo xooggii badneed oo bini aadanka ka bixi jiray way yaraysay, taasoo bini aadanka ku suurtagelisay inay howlo badan qabtaan. Haddaba AI tusaalahaas, steam enginekaas ama mashiinkaas baynu u isticmaali karnaa. Hadda AI waxay ganacsi walba u ogolaanaysaa dhibaatooyinka ugu waaweynaa ay haysan jiray oo ah human cognitive. Shaqaalihii waxay qaban karaan howlo yar waqti fudud. Waraaqadihii iyo emailadii iyo taageeridii macaamilka iyo codingkii ama programmingkii, financigii iyo shirkadii lacagihii soo galay iyo waxyaalahaas oo dhan, marketingkii ama suuqgeyntii, waxyaalahaas oo dhan AI way fududeysay. Waxaa keliya ay u baahan tahay qof shaqaale ah oo dhex taagan oo hawshii AI ay sameynayso u sheega, hawshii ay samaysay validate gareeya oo dhaha hawshaan sidii loo rabay bay u dhacday, confirmation uu sameeya, wixii ay qaladana ku celisha oo saxa, oo yacni ku jira qayb yani hagid ah ama orchestration. Caqabadda labaad ee ay xalinayso waa waxa loo yaqaano interface problem. Interface problem waxaa kasoo bilaaban tusaale ahaan computeriska mar walba weligood awooday lahaayeen. Si loo isticmaalo marka, waxaa u baahneen luqadaha computerka inaan kula hadalno sida assembly languages. Taas way adkeed. Kadib waxaanu soo saarnay waxa la dhaho programming languages, high level programming languages sida Python, oo ah in programming sida computer aad u qorayso, sida aad u qorayso English oo kale, computerkana uu fahmayo iyadoo loo marayo compiler ama interpreter. AI waxyaalahaas oo dhan way sii fududeynaysaa. Aan dhahno maanta qof database aanan aqoonin yaa wuxuu rabaa SQL inuu wax ka bedelo. Uma baahna inuu SQL barto. Kaliya wuxuu u baahan yahay in AI uu la hadlo, uu dhaho waxaan u baahanahay waxaas inaan bedelo. AI-ga iyada qaadayso, fahmayso SQL-kii oo ka bedelayso. Mu baahnid Photoshop inaad taqaano si aad video ama sawir ama waxa u edit garayso. Kaliya AI ayaa u sheegaysaa, iyada samaynayso.
taas marka dad badan oo balaayin ah oo kombiyuutarka ku xirnaa inay luqadiisa bartaan ama ay kula hadlaan ama xirfadahaas bartaan yay u fududeysay wax aynan garanayn inay sameeyaan. aan labadaas caqabad ku keeno. Haddaba marka yaa AI ka faa'iideysan karo? AI marka koobaad waa dadkii sameeyey, waa shirkadaha waaweyn ee AI-ga sida Anthropic, OpenAI, Google iyo shirkadahaas oo kale. Sababtoo ah iyagaa haystaan computingkii, iyagaa hayaan researcherskii iyo resourcigii iyo wax walbo oo AI-ga u baahan tahay. annaga dadkaas kuma jirno oo ma haysano infrastructurekaas. Dadka labaad ee ka faa'iideysan karo waa shirkadaha computerka. Shirkadahaasa oo energy iyo waxyaalahaas provide gareynayo. Shirkadaas waxaa number one ka ah oo AI walba almost ay isticmaashaa shirkadda Nvidia. Anaga Nvidia marin, Nvidia waxay qaadatay almost 30 sano in shirkad saas oo kale lasoo saaro. Dadka saddexaad ee AI-ga sida ugu fiican uga faa'iideysanayo waa consumerska. Waa dadka shacabka ah. Maxay uga faa'iideysan karaan? Waxay uga faa'iideysan karaan inay su'aalo weydiiyaan, inay wax turjun dhahaan, inay sawiro ku sameeyaan, inay baaritaan ku sameeyaan, inay wax cusub ku bartaan, programmingkii email inay ku diyaariyaan, waxyaalahaas oo dhan. Gaar ahaan programmerska waxaa soo baxay oo consumerka ku jiro AI agents. AI agents waa inaa industry niche ah qabato. Oo tusaale aan dhahno waxaa gashay industry dhakhtarnimada. Dhakhtarnimada waxaa kasii gashay psychology. Psychologygaas inaa u samayso workflowgiisa automation adigoo isticmaalayo maskax ahaan maskaxda LLMska ama large language modelska adoo isticmaalayo inaa automate garayso hawshaas. AI agentska basically waxa waaye howla u dhiibaysaa, hawshii markaa u dhiibto sidii loo sameyn lahaa iyo processkii iyadaa raaciso, jawaabtii ku siinaysaa. AI agentska waa intaas. waana shirkadaha hadda waaweyn ee soo baxaya bilyan noqday waxay kordhisan yihiin sida Perplexity oo ah Sergi loo isticmaalo iyo sidoo kale Cursor oo kale iyagoo ka isticmaalaya LLMskii maskaxdooda qaab API ahaan u isticmaalayo iyo waxay ku xireen niche amaba yani market aanan AI ku xirnayn si hawshaas ay u automate garayaan. Marka AI-ga waxaan u kala saaraynaa markaasi labo. Waxaan leenahay AI waxay noqon kartaa closed amaba open source. Closed waxa weeyaan AI si gaara loo leeyahay sida Claude, ChatGPT iyo waxyaalahaas. Open source ama local AIskana waa AI computerkaaga adiga aad kusoo dejisan karto, keliya ayaga ay train gareeyeen aad ku madax bannaan tahay. Dadka badanaa hadda waxay usii badanaan inay isticmaalaan open source modelska sababtoo ah caqabadda ugu weyn ee shirkadaha closed AIs ama frontier companieska waa in xogtaadii ayaga ay maamulayaan oo u isticmaalayaan inay ku train gareeyaan AI-gooda. Marka waxaan dhahnay AI-ga saasay ku bilaabatay, caqabadaasayna biniaadanka u xalinaysaa. waxaana ka faa'iideysan kara dadkaas aan soo tixnay oo ah shirkadihii AI-ga sameeyey, shirkadaha computingka iyo consumerska oo ay u isticmaali karaan inay wax ku bartaan, wax ku baaraan, emailing ku sameeyaan. Dadka developerska si gaarana ay ku sameeyaan AI agents ama software AI lagu integrate gareeyo oo AI maskax u tahay. waxaan u kala saarnay closed iyo open source. Haddaba dadka badan hadda ay su'aal weydiiyaan way ugu jawaabtaa, laakiin sida saxda ah ama ugu fiican AI uga faa'iideysan karto oo dadka badan uga faa'iideysan waxaa kamid ah inaad u isticmaasho inay challenge kula sameyso ama brainstorming inay kula sameyso, inaad dhahdo waxaas iyo waxaas sidaas iyo sidaasaan u arkaa, ila challenge garay. Stress testing inay kula sameyso in fikradaada iyo waxyaalahaas aad la wadaagto AI oo ay ku noqoto qof kula shaqeeya oo fikirka kula xoojiya iyo waxyaalahaas. Iyo inaad u isticmaasho content creationkii haddii aad rabto inaad blogs ama waxyaalahaas aad qorto. waxaa soo baxayo data scientist la dhaho oo AI-ga markii xogtii bini'aadanka ay siiyeen iyadaa xogtaas la siiyey xog kasii dhex samaystay oo waxay noqotay AI generated. Marka haddii AI-ga blogs aad u isticmaalayso qoraallo, waxaa u isticmaali kartaa qoraallo yacni Facebook iyo platformskaas iyo meelahaas aad soo dhigto. waxaa u isticmaali kartaa oo ugu fiican studyingka inaad wax ku barato oo AI-ga si guiding ah waxaa soo badanayo wax la dhaho AI tutoring in AI-ga iyada ay wax ku barto step by step wixii ay fahmaysa aad la wadaagto, challenge ay ku dirto aad soo xaliso. sidoo kale AI-ga maalmahan waxaa lagu integrate gareeyay Claude iyo ChatGPT interactive STEM in graphics iyo waxyaalahaas ay soo render garay karaan. marka waxay boos kasii saaraysaa howlihii macallimiinta ay qaban jireen iyadoo qof walba siinayso shaqo personalizer ah. waxaa u isticmaali kartaa emailinka iyo waxyaalahaas in email ay ku diyaariso. waxaa u isticmaali kartaa inaad research aad ku sameyso, wax aad ku baarto, analyze garayso. laakiin waxa AI ayna tahay weliga inaadan u isticmaalin waa qaybta go'aan gaarida. AI maaha bini'aadan, dareen ma laha. waxay sameysaa wax la dhaho hallucination oo ah in ay ilaawdo xogtii hore, xog qaldan marka qaar kalsooni leh ay ku siiso. si waxaasoo dhan marka aad uga hortagto waa inaad mar walba verify garaysaa xogta AI-ga ay ku siiso. waa sababta shirkadaha waaweyn mar walba hoos ay uga raaciyaan AI-geena xogta uu ku siiyo la iskuma halay karo. Always double check. AI weligaa maskax ahaan ha u isticmaalin, laakiin u isticmaal partner ahaan, qof kula shaqeeya ahaan. waxyaalaha haabka ahayna ka mid tahay in la leeyahay AI-ga shaqooyinkaaga way qaadanaysaa.
wax walba waa la automate garaynaya, bini aadamka looma sii baahnaa doono. Waxyaalahaas oo dhan waa hadallo marketing ah oo yani suuqa galayo, shirkadaha waaweyn yaana push garaynayo si nimanka venture capitaliska ama shirkadaha maalgashiga ay ugu helaan maalgashi fara badan. Hadda ugu dambeyn waxaan rabaa challenge 7 maalmood inaan isla sameyno. Marka koowaad, list garee intii howlaha maanta qabatay, wixii aad baartay, waxaa soo qabataa hawl kugu qaadatay aan dhahno 30 daqiiqo ka badan. Hawshaas AI la kaasho oo la isticmaal. Promptiga AI aad siinayso, tusaale halkii aad dhihi lahayd AI aad siin lahayd broad, yani su'aal broad ah oo aanan ahayn su'aal yani niche ah. Mar walba si su'aal yar oo clear ah, context fiican AI sii. Qofka ugu fiican ee AI ga isticmaalo waa qofka promptiga siiya amaba qoraalka AI ga aad siinayso ay ahaato context clear ah, wax AI-ga ay fahmi karto step by step. Inaad dhahdo waxaana dhacay sidaas iyo sidaas aan wax u rabaa, waxaas iyo waxaasaa filaya, waxaasa sameynin, waxaana sameey. Inaad AI-ga siiso scorecard. Laakiin haddaad dhahdo waxaas sameey, waxay u badan tahay jawaab degdega oo fiican inaadan ka helin. Marka in AI isticmaasho, inaad isku daydo in baaritaan aad ku sameyso, inaad isku daydo wax cusub inaad ku barato, inaad su'aalaha siinayso iyo wax walba aad testigarayso. AIs kala duwan inaad isku daydo ChatGPT, Claude, inaad isku daydo AIska hadda soo baxayo Grok, Meta AI-ga hadda ay samaysay. Waxyaalahaas oo dhan inaad benchmark ku samayso, tijaabiso, oo aad isweydiiso maxay AI-ga ii xalisay noloshaydii. Bal fiiri waxa iska bedelo noloshaada kadib markii AI isticmaashay iyo ka hor inta aadan AI isticmaali jirin. Challenge-ga 7 maalin ilaa sameey. Waxaan rabaa marka mawduucan halkaas inaan ku soo xiro.